Cabdullaahi Cusmaan Daahiye oo arday ka baxay kulliyadda injineeriyadda ee Jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay gaari cusub oo asagu uu farsameeyay. Gaarigan uu sameeyay Cabdullaahi Cusmaan ayaa maanta lagu soo bandhigay xarunta dhexe ee Jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho. Waxaana Universal TV uu sheegay in samaynta gaarigan uu bilaabay hal sano ka hor, maantana uu dhammaystiray, haddana uu yahay gaari caadi ah oo la mid ah baabuurta ay farsameeyaan shirkadaha gawaarida adduunka. Wallahi waa dareemi kartaa wax oo qarash waqti time xoog intaba ka galay markii ay ku guuleysato because of shalay barnaamijka markii ay bilaabeynay rag badan qaar way nagu nijibinayaan oo waxa waaye ma isan filaynin in anaga gaari ka dhaqaajino ama sameey karno yani dad qolob si u hadlaysay laakiin waxa alxamdulillah ilaahay mahadiis ah in maanta gaarigana u jeedo dhaqaaqayo waa gaariga nuuciisa u jeedo waa gaari two wheel drive waa gaari gear waa gaari yar يعني وانا قاري او ريسورس انتيس la heli karo yani meesha ka soo bilaabnay wax dhan yani dadka qaar hadda markii arkaan dhahaan waa gaari cusub jarteen iyo meel laga keenay ma aan sameeynin way adagtaysay ku imaan Soomaalidan qob waa waji laakiin muhiimad ugu weyn waa farxad weyn hadana xaqiiqatan wallahi sameyntiisa adiga waxna waa wax hoosh intii socotay waxna waa waqtigii oo macnaha oo abaabulkii qorshe oo socday yani qorshe intuu socday waqti far badan ahayd laakiin shaqada intay socotay waxay nagu qaadatay at least hal sano nagu qaadatay horta mar xag maaliyada hada ka hadlo waxa naga hor istaagay oo garab weyn siiyay Jaamacadda Hormuud University oo ogolaatay ardayda kaliya ardayda u meesha tala galeen yani team mechanic oo dhan ay ugu tala gashay inay ka faa'iideystaan yani qofka jaanis ka helay oo fursad u helay aniga noqday caawinaad markii laga hadlana waxa si gooni ugu mahadcelinaya macallimiinta qaaliga ee farsamada gacanta Dr. Cabdimahad Abshir Carraale gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada Jaamacadda Hormuud ayaa u hambaliyay ardayga maanta gaariga soo bandhigay waxaana sidoo kale uu ka hadlay naqshado cusub oo ay sameeyeen ardayda Jaamacadda Hormuud kuwaas oo hadda la shaybaarka jaamacadda hadii ay helaan maalgelin noqon kara kuwa dhaba sida gaariga maanta uu soo bandhigay Cabdullaahi Cusmaan oo kale waxaan ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan oo nu joognaa bandhiga ama hal abuurka gaariga oo ay soo bandhigeen ardayda Jaamacadda Hormuud qaybta engineering-ka gaar ahaan waaxda mechanical engineering runtii waxaan hambaliyaynaynaa waxaan ku raadaa ardayda la imaatay hal abuurkan quruxda badan maaragtay oo waxtar kale oo ugu horeeyo waxaan ku raadaa engineer-ka daada yar Cabdullaahi Cusmaan Daahiye iyo tiimkiisa oo runtii ka mira dhaliyay hadafkii waxbarashada laga lahayo ah ardayga markii la siiyo tacliin iyo tababar waxa laga filayo waxa waa inuu wax soo saaro mar kale waxaan hambaliyaynaynaa ardayda barnaamijyada soo bandhigtay barnaamijkan quruxda badan iyo gaarigan waxaan kaloo hambaliyaynaynaa kuwa kale iyagana mashaariicda hadda ku howlan iyo kuwa hore u dhameeyay oo aad hadda ku soo aragteen laabka intaan kaliya ma ahan xitaa laabka jaamacadda ay yaalaan kuwa kale oo far badan aad iyo aad u mahadsantiin Sadi Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho